galab wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad nagala socotaan Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay ku soo dhawaada warka galabnimo oo ka daawanaysaan telefishinka qaranka Itoobiya Nimcaan Cusmaan ayaa warka idinla socodsiinaya inta badan dalalka caalamka ayaa waxaa maanta laga bilaabay soonka bisha barakaysan ee Ramadaan wariyahayaga Nasruddin Xasan ayaa warbixintan ka diyaariyay dadka muslimiinta ee ku dhaqan daafaha caalamka ayaa maanta oo salaasaa bilaabay soonka bisha Ramadaan ee muddada dheer la sugayay. bisha Ramadaan ayaa ah bil ummadda muslimiinta inta badan ay ku camiraan noocyada cibaadadaas sida inay ogaan salaada, quraan akhrista, cafiska iyo bixinta sadaqada, taasoo Allah uu ku tilmaamay in cidda gudata waajibaadkan bisha ay mutaysanayso awaalmarin dhanka eebe. bisha Ramadaan ee sanadkan ayaa ku soo beegmaysa xilli dunida uu ka jiro fayraska corona isla markaana qaybo badan oo ka tirsan Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida uu wajahayo xaalad abaareed oo aad u daran. qaar ka mid ah muslimiinta ku dhaqan magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ku tilmaamay in bishani ay tahay bil ay si weyn u sugayeen isla markaana looga baahan yahay bulshada muslimiinta in midba midka kale ay iscafiyaan isla markaana dhexdooda ay iscaawiyaan. ninka daciifka waa in loo gargaaro alacnii afurka waa in la siiyo waa in alacnii laga warhayo diinteenu waa nasteexo waa in la isku nasteexayo weeyaan ya diin nasteexanaysanaa diin dhib badan ma aha waa diin nasteexa waa diin wax walba ogol marka waxa weeyaan diinteenu waxa weeyaan waa nasteexe si alacnii ayna fartay inaan u dhaqano weeyaan in alacnii si kale u dhaqano ma aha in la isku nasteexayo weeyaan ma sha Allah shacab isku duuban dadnimadooda wadankooga dadkooga kasta ay qofkii caloosha ku hayay oo caloosha ka sii daayo taasi aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa kulkii horena waxaan ku daray reportigayga horaan ku daray dadka iyo dhibaatada jirta waxa weeyaan dhibaatada inaga abuurayna ilaa dhibaato ma timaado buu Ilaahay yiri ilaa waxay dadku kasbadeen mooyaane maadaama ay sidaa tahay waxaan leeyahay walaalaheena Itoobiyaanka ah dhammaanteen caloosha aan isku furno bisha Ramadaan ayaa qiimo weyn ugu fadhida dadka muslimiinta ee dunida ku nool waana bil eebba ugu deeqay ummadda muslimiinta in ay gutaan mid ka mid ah tiirarka islaamka taas oo dadka muslimiinta ay u tahay in ay iscaawiyaan dhexdooda isla markaana ay gutaan fariinta bisha barakaysan ee Ramadaan. guud ahaan Itoobiya ayaa si rasmi ah waxa uga bilowday soonka bisha barakaysan ee Ramadaan oo socon doona tan iyo dhamaadka bisha Ramadaan. haddaba bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa dhammaan dunida muslimka iyo meel kasta oo ay muslimiintu joogaan waxay ku camiraan noocyada kala duwan ee cibaadada sida soonka, salaadaha, quraan akhriska iyo waliba sadaqada. waxaa haddaba khadka taleefanka ku jira oo aan acmaasha ee bisha Ramadaan ugu muhiimsan ee la sameeyo aan ka wareysan doona Sheekh Axmed Siyaad oo ku sugan magaalada Addis Ababa. sheekh ku soo dhawow marka hore telefishinka qaranka Itoobiya waxaan jeclaan lahaa inaad nooga warbixiso bisha Ramadaan iyo fadaaisheeda. bismillahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan dadka Itoobiya gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu bishaaraynayaa bilashada ama bilaabashada bisha Ramadaan waa bishii Ilaahay Quraanka uu soo dejiyay waa bishii maqfirada iyo dambi dhaafka waa bishii raxmada waa bishii naarta la iska xoreynayay marka waxaan muslimiinta dhammaantood ku doorinayaa inay bisha qaabilaan martida sharaf kale inay qaabilaan si dadaal ay ku qaabilaan wixii diyaar garow ah cibaado ay u diyaar garoobaan taasaan ku muslimiinta ku dhiirigelinayaa Allah ka aqbala baan leeyahay Allah u dambi dhaafo dadka muslimiinta ee dadaalka sameeya muwaafaqada Allah waafajiyo bisha soonkeeda ha lagu dadaalo daacada ha lagu dadaalo quraan akhriska wardiga soonka sadaqada wanaag oo dhan ha lagu dadaalo taasaan ku boorinayaa dadka islaamka
waa gartay sheekh axmed dabcan maanta meelo badan oo dunida muslimka ah ka mid ah ama guud ahaan dadka caalamka ku nool ee muslimiinta waxa ay soomayaan maalintii koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan xilli adag baa lagu jiraa dabcan oo deegaanka soomaalida ay abaara ka jiraan sidoo kalena waxaad la socotaa in viruska corona uu dunida meelo badan oo ka mid ah la geeyey maxaa aad ugu baaqaysaa ama fariinaya aad u diraysaa dadkaas si viruska looga digtoonaado ama si looga taxadiro dadka islaamka waxaan ku doorinayaa inay bishan sada qaabilaan ilaahay aqbalaan cibaadada ay badiyaan oo bishii baryada la aqbalayay inay ilaahay baryaan dadaalka daacadii uu ku dadaalaya ilaahay inay raali geliyaan baryadiisa ay badiyaan taasaan dadka ku doorinayaa inay midnimada inay saamaxaan inay midnimada ogaadaan inay wanaagga oo dhan ay qaabilaan ilaahay inuu abaarta ka jebiyo ilaahay inuu cudurrada ka dulqaado ilaahay inuu midnimo iyo khilaafka uu ka saaro taasaan dadka islaamka ayaan ku doorinayaa waan gartay dabcan bisha barakaysan ee ramadaan inkasta oo sideedaba ay sadaqadu tahay wax mar kasta bannaan amase waajib ah maxaad ku boorinaysaa ummadda muslimiinta gaar ahaan dadka soomaalida ah in ay isu naxariistaan oo ay ka warhayaan dadka baahan amase hayntooda ay aada u liidato sadaqadu mar kasta iyadoo ay fadli badan tahay haddana waxay sii fadli badan tahay bishan ramadaan daacad oo dhan baa bishan sii fadli badan nebigu wuxuu yihi qofkii qof saa'ima afuriyaa wuxuu helayaa ajirkii qofkaas sooman ayuu helayaa in leeg baa la siinaya isagana ajirkiisa waxba lagama nusqaaminayo marka waa bishii sadaqada bishani daacada oo dhan iyo qur-aanka oo la akhristo sadaqada oo lagu dadaalo in la isu naxariisto albaabada waxaa furan jannada khayraadka oo dhan in lagu dadaalo laga faa'iidaysto taasaan dadka ku doorinaya insha allah aad iyo aad ayaad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed siyaad oo ka mid ah culimada soomaalida oo isagoo khadka taleefanka igu warramayay isagoo jooga magaalada tan addis ababa waxaan ka raali gelinaynaa dhinaca khadka telefoonka oo tayadiisu ay aada u liidatay golaha midnimada iyo nabadgelyada deegaanka soomaalida ayaa waxa uu taageeray in loo baahan yahay dhaqangelinta heshiiskii dhowaan dhex maray mas-uuliyiinta ka kala socota deegaanada soomaalida iyo sidoo kale deegaanka canfarta dhowaan ayaa haddaba ahayd markii mas-uuliyiinta labada deegaan iyo weliba xubnaha ay khusayso uu heshiis ku dhex maray magaalada tan addis ababa heshiiskaasi oo ay garhwadeen ka ahayd wasaaradda nabadda ee dalkani Ethiopia aqoon-yahanada kala duwan ee dalkan Ethiopia ayaa waxaa la sheegay in ay door muhiim ah ka qaadan karaan arrimaha doorashada ee dalkan Ethiopia gaar ahaan sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid ka duwan doorashooyinkii shanta ahaa ee hore dalka uga dhacay Xamdi Maxamuud ayaa warbixintan ka diyaariyay aqoon-yahanka kala duwan ee dalka ayaa la tilmaamay inay door weyn ku leeyihiin sidii doorashada lixaad ee dhowaantan dalka ka qabsoomi doonta ay u noqon lahayd mid ku dhacda nabadgelyo iyo dimuqraadiyad doorashadan ayaa la sheegay in la filayo inay u qabsoonto qaab ka duwan kuwii hore ee dalka hore uga soo qabsoomay waxaana la filayaa inay noqoto mid u qabsoonto si cadaalad ah si loo hirgeliyo doorasho ku qabsoonta jawi xasiloon islamarkaana dimuqraadiyad ku salaysan ayaa la xusay inay aqoon-yahanka looga fadhiyo doorkooda ku aadan qabsoomidda hirgelinta Dr. Yohannes Baqale waa bare ka tirsan jaamacadda Addis Ababa waxa uu sheegayaa in aqoon-yahanku yahay kan go'aamin kara jiritaanka waddanka maadaama uu yahay muraayadda ahna hormuudka bulshada inteeda kale sidaa daraaddeedna aqoon-yahanka looga fadhiyo inay wax walba ka horreysiiyaan hirgelinta qarannimo እዚህ ላይ እንግዲህ ምሁራን ትልቁን ሚና መጫወት አለባቸው ብለን የምናምነው በዚህ ጊዜ ነው Dr. Yohannes Baqale waxaa kale oo tilmaamay in qolo qoomiyad iyo shacab uu jiri karo marka uu daljiro aqoon-yahankana looga fadhiyo inuu wax walba ka horumariyo jiritaanka waddanka isla markaana uu shacabka intiisa kale u noqdo tusaale waxaa kale oo carabka ku adkeeyay in aqoon-yahanka dalka looga fadhiyo inay doorkooda weyn ee ay leeyihiin ka soo baxaan sidoo kale Dr. Masale waa bare ka tirsan jaamacadda Addis Ababa waxa uu sheegay in loo baahan yahay si loo hirgeliyo Ethiopia ka duwan tan maanta in dhalinyarada looga fadhiyo inay noqdaan kuwa aan la adeegsan balse si iskooda u madax bannaan oo leh aragti fog arrintaasina lagu hirgelin karo aqoon-yahanka maanta oo dhalinyarada uga faa'iideeya waaya aragnimadiisa ወደፊትና ወደ ኋላ አይተህ ለወጣቱ ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለነገ ጭምር የሚሆነውን እይታ ነው የምትሰጠው
guud ahaan aqoonyahankani kala duwan ee la hadlay telefishinka ETV ayaa ku baaqay in shacabka oo ah mulkiilayaasha waddanka ay doorkooda ka qaataan doorashada. meelaha dhaqdhaqaaqa tartanka doorashooyinka laga mamnuucay. meelaha hoos ku qoran lagama fulin karo ololaha doorashooyinka ee codbixiyaasha lagu soo jiidanayo. masaajidada, kaniisadaha, xeryaha ciidamada militariga iyo saldhigyada booliska. dugsiyada waxbarashada iyo nawaaxigooda marka geedi socodka barisbarasho uu ka socdo meel masaafadeedu ama fogaanshaheedu 100 mitir ka yar yahay. meelaha shacabku ay wax kala iibsadaan miyiga iyo magaalooyinka maalmaha qaarkood marka kala iibsashada rasmigu ay socoto meel ka yar masaafo 100 mitir. goobaha laga fulinayo shaqooyinka dawladda ama shacabka saacadaha shaqada ee rasmiga ah. meelaha iyo goobaha ay ka socdaan shirar kale oo dadweyne. maxadka caafimaadka bulshada ee dalkan Ethiopia waxa uu sheegay in uu ku guda jiro diyaarinta daraasado waxtar u yeelan doona ka hortagga iyo la dagaalanka viruska corona. Nasruddin Xasan ayaa warbixintan nala socodsiinaya. Ethiopia wasaaradda ayaa tilmaantay in daraasadan cusubi ay taageerayso xirfadlayaasha caafimaadka waxayna ku baaqaysaa in mas'uuliyiinta deegaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay kaalintooda ka soo baxaan. cilmi baaris sare oo ka tirsan macadka caafimaadka Ethiopia oo lagu magacaabo Dr. Saro Abdalla ayaa waxay xustay in cilmi baaristani ay ka koobnaan doonto 160 warbixino taasi oo wax ka tari doonta yareynta faafidda fayraska corona waxayna ku baaqday in laga qayb qaato intay socoto daraasadani. geestiisa madaxa koox-hawleedka cilmi baarista daraasadan sameynaysa Dr. Ababo Gabayo ayaa dhankiisa sheegay in muhiimadda kooban ee daraasadani ay tahay mid lagu ogaanayo heerka fayraska ee dalka iyada oo ay saacidayso in tallaabooyin hor leh la qaado laguna guuleysto faafidda fayraska corona. Doctorka ayaa sidoo kale tibaaxay in ay soo tarayso tirada dadka u soo ridanaya fayraska corona isla markaasna waxa ugu baaqay bulshada in ay muujiyaan taxaddar ballaaran. guud ahaan Ethiopia ayaa wajahaysa wareegga labaad ee fayraska corona oo dunida mar labaad ku soo labakacleeyay. warka galabnimo ee telefishinka qaranka Ethiopia ayaa daawanaysan. danjiraha dalkan Ethiopia oo fadhiya waddanka Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in midowga Afrika uu yahay cidda qura ee xal u heli karta muranka biyo xidhanka Abay. Xamdi Maxamuud ayaa faahfaahinaya. waxaa xusid mudan in ururka midowga Afrika uu qayb ka ahaa dhexdhexaadinta gorgortanka u dhaxeeya wadamada Ethiopia, Suudaan iyo Masar kaasi oo ku aadan mashruuca dhismaha biyo xidhanka webiga Blue Nile. gudoomiyaha cusub ee ururka midowga Afrika ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Filiski ayaa sheegay in saddexda wadan isticmaalka biyaha webiga Kasako ay ka fikraan damaanad qaadka cuntada iyo caafimaadka. dalkan Ethiopia oo leh 86% biyaha webiga Abay ayaa ya hadda aan ka faa'iideysan kheyraadka biyaha webigaasi. Henok Tafara joins us, Ethiopia's ambassador here in Paris. danjiraha Ethiopia u fadhiya waddanka Faransiiska Ambassador Henok Tafare oo waraysi siiyay telefishinka France 24 ayaa sheegay in tirada muwaadiniinta Ethiopiaanka ah oo leegtan waddanka Faransiiska ayna ilaa maanta haysanin quwad koronto isla markaana dhismaha mashruucan webiga Abay uu yahay rajada Ethiopia. We're confident that through negotiation a win-win solution can be found. danjiraha ayaa sheegay in dhexdhexaadinta ururka midowga Afrika ay tahay mid lagu gaari karo xal waaro oo saddex geesood ah. danjiraha ayaa sidoo kale waxa uu carabaabay in tan iyo bilowgii dhismaha mashruuca biyo xidhanka webiga Abay ay dawladda Ethiopia ku celcelinisay in haba yaraatee wax saameyn ah uusan ku yeelanaynin hirgelinta dhismahani biyo xidhanka wadamada hooseeya ee uu maro biyo dhaca webigani isla markaana ka faa'iideysiga kheyraadka webigu uu gaadhayo Suudaan, Masar iyo Afrikada kaleba. sidaa daraadeedna loo baahan yahay inay wadamada soo noqdaan miiska gorgortanka oo ay iska iloobaan khatarta ay ku sheegayaan hirgelinta mashruucan biyo xidhanka webiga Abay. Are you confident that by the end of this there can be an accord, concerted agreement to go forward?
If all sides negotiate in good faith, toddobaadkii laga soo gudbay ayay ahayd markii lagu kala kacay fadhi ay dhexdhexaadinaysay ururka midowda Afrika oo u dhexeeyay saddexda dal kaasi oo ka qabsoomay waddanka Congo. waa tahay daawadayaal haatanna wararka aan idinka hayno dhinaca caalamka aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa waxa uu muddo kordhin 2 sano ah u sameeyay madaxweynaha waddankaasi Maxamed Cabdullaahi 149 xildhibaan ayaa taageeray 3 ayaa ka aamusay hal qofna waa uu diiday codkan aqlabiyadda ah ayaa haddaba si uu u dhaqan galo waxa uu u baahan yahay in uu ogolaansho ka helo golaha sare ee baarlamaanka ee waddanka Soomaaliya madaxweynaha waddankaasi Farmaajo ayaa go'aankani si farxad leh u soo dhaweeyay waxaana uu sheegay inuu door muhiim ah ku yeelan doono xal u helista khilaafaadka doorashada ee waddankaasi musharaxiinta mucaaradka iyo waliba qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada waddanka Soomaaliya ayaa go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka ka soo horjeestay bilihii la soo dhaafay ayaa haddaba waddankaasi waxaa ka jiray muran ku aadan qabsoomidda doorashada waddanka warkii galabnimo ayaa intaasi ku dhan qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid ah ummadda muslimiinta ayaa waxa ay maanta bilaabeen soonka bisha barakaysan ee Ramadaan aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Soomaaliyana waxa uu muddo kordhin 2 sano ah u sameeyay madaxweynaha waddankaasi Maxamed Cabdullaahi waa tahay daawadayaal guud ahaan warkii galabnimo waa naga intaasi nimcaan cusmaan ayaa idin warramayay nabadgelyo